حزب الحاكم كتلada dalka haya kulmiye ayaa xubinnimadii xisbiga ka saaray siyaasiga caanka ah Maxamuud Xaashi Cabdi afayeenka xisb الحاكم كتلada dalka haya kulmiye Cabdi Naasir Buuni oo warbaahinta la hadlay ayaa sidan sheegay waxaana kamid ah hadaladiisii wareegto maanta oo ay bishu tahay 28 bishii 10aad 2021 ka soo baxday xisbiga kulmiye ku Maxamuud Xaashi Cabdi oo gudida fulinta xisbiga kulmiye oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ujeeda waayid xubinnimada xisbiga kulmiye aniga oo tix raacaya go'aanka anshax marinta ah ee ay soo saareen gudida anshaxa xisbiga kulmiye maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bishii 10aad 2021 fadhi ay yeesheen kadib markii aan la tashaday hoggaanka xisbiga kulmiye kadib markii aan la tashaday gudida fulinta xisbiga kulmiye kadib markii xubinta qoraalkani khuseeya uu jabiyay dhammaan xeerarka iyo shuruucda u yaala xisbiga kulmiye kadib markii isaga oo aan ka mid ahayn hoggaanka xisbiga kulmiye gudida fulinta xisbiga kulmiye iyo gudida golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu siyaabo khaldan uga faa'iideystay magaca xisbiga kulmiye waxaan go'aamiyay in aan si buuxda u aqbalay go'aanka gudida anshax marinta ah ee xisbiga kulmiye ii soo gudbiyeen oo ah in Maxamuud Xaashi Cabdi uu waayay xubinnimadii xisbiga kulmiye sida daraadeed laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 28 bishii 10aad 2021 in aanu Maxamuud Xaashi Cabdi xubin ka ahayn xisbiga kulmiye sheegana karin magaca xisbiga kulmiye Allah mahadle Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Xamse Cawke Sahan TV hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyga Soomaaliland